السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعنا عمر داير محمود oo idin leh soo dhawaada ardayda u baahan waxbarashada Ingiriiska waxaan ku bilaabaynaa alphabets it is 5 parts waa shan qaybood ay ka mid tahay kow waa capital letters waa xarfo waaweyn af Soomaali ayaan ku dhigay si ardayga u fahmo labo waa small letters xarfo yar yar oo xarfaha yar maxay ahaayeen waa soo socdaan qaybta saddexaad waxaan ku baran doonaa oo hadda soo socota Englishka aan dhigano waa macallin Cumar Daahir Maxamuud oo idin leh soo dhawaada ardayda cid u baahan waxbarasho marka alphabetiska waa shan qaybood waxaan soo baranay laba qaybood aan soo baranay qaybta saddexaad waxa weeyaan capital letter and small letter dunkada waa xarfo weyn iyo xarfo yar yar oo wada jira numberka afraad waa consonants ayaa la yiraahdaa si loo dhawaaqo waa shibanayaal ergaas waa shibanayaal kan shanaad waa vowels ayaa la yiraahdaa waana shaqal weeyaan marka waxay faahfaahintaas dheer waana